السلام عليكم صاحبada mar walba nagala socda boggeena bukaan deeq clinic hadii ilaahay idmo ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaaladeeni muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa hadii hal ukun ama hal ugxaan laga gooyo ama laga jaro gabadha ma dhali kartaa oo uur ma qaadi kartaa ukumaha oo ah meesha laga soo saaro ugxaanta shahwaduna ay bacrimiso waa laba xabo oo ku kala yaala labada cirif ee minka kuna dhegan laba tubo oo lagu magacaabo fallopian tubes kuwaas oo qaada ugxaanta si shahwad u bacrimiso bishii hal mar ayay dhacdaa ugxaan qarxinta taa oo ah in mid ka mid ah labada ukun soo deyso ugxaan si ay ula falgasho shahwada qiyaastii kala bar tubada qaada ukunta ee lagu magacaabo fallopian tube ayuu ka dhacaa kulanka shahwada iyo ugxaanta si uu u beermo uurjiif dabeetana loogu sii gudbiyo minka oo ah meesha lagu koriyo isku darka shahwada iyo ugxaanta haddii aysan ugxaantu bacrimin la kulmin 2 isbuuc kadib waxaa loo bedelaa dhiigga caadada sidaana minka ayaa caada ahaan u soo saara waxa ayna socotaa ugu badnaan 7 maalin horey waxaa loo aaminsanaa markii haweenku leeyihiin 2 ukun oo shaqaynaysa ay tan midig bisha hore sameeyso ugxaan qarxinta tan bidixna bisha ku xigta laakiin hadda waxa la rumaysan yahay in haweeneyda leh hal ukun oo shaqaynaysa ay la mid tahay qof leh hal kili awoodna u leedahay inay uur qaado waxyaabaha sababa in gabadha laga saaro hal ukun oo ay yeelato kali ah hal ukun ama hal ugxaan oo soo deyn karta ukun bacrimi karta caabuq ku dhaca kafka iyo ukumaha tubooyinka oo lagu magacaabo pelvic inflammatory disease ama PID qanjirka minka oo ku sameysma tubooyinka minka laguna magacaabo endometriosis caabuq galmada lagu kala qaado sida jabtada ee lagu magacaabo si guud STD ama sexual transmitted diseases uur ka dhaca tubooyinka oo lagu magacaabo ectopic pregnancy buro tubooyinka ku sameysanta qalin lagu sameeyo tubooyinka oo xirmay qaababka ugu fudud ee uurka loo qaadi karo hadii hal ukun laga saaro gabadha nolosha oo wax laga bedelo waxyaabaha kafayga leh oo aan la isticmaalin miisaanka oo lagu hubiyo meesha ku haboon hadii gabadhu aad u cayilantan inay sirayso oo miisaankeeda dhinto hadii ay aad nafaqo daro ama miisaan yari u leedahana inay soo kabto oo body mass indexkeeda meesha loogu talagalay miisaankeeda lagu hubiyo sameynta jirdhis joogto ah qofka oo walwalka iska saara isticmaalka raashinka fududeeya helista uurka sida qudaarta cagaaran raashinka qolofta leh kalluunka iyo ukunta qaadashada vitamin C si loo helo nuugis ku filan ironka jirka iyo sidoo kale qaadashada folic acid qoraaladan iyo kuwa lamid ah oo ku saabsan hooyada uurka leh laga soo bilaabo marka ay uurka qaado ilaa ay ka dhalayso iyo 6 bil ugu horeysa xanaanada ay u baahan yihiin ilmaha dhashay waxaad ka daalacan kartaa qormooyinkiisa buugga qoys deeqe kaas oo aad ka heli kartid lambarada shaashada ka muuqda waa mahadsantihiin